Asxaabta qiimaha badan ee ku xiran channel-ka ku soo dhawaada qayb kale oo xiiso leh. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa taariikh iyo xog muhiim ah oo ku saabsan magaalada quruxda badan ee Kismaayo. Laakiin ka hor inta aanan bilaabin, fadlan igu taageer adiga oo subscribe ku dhufta, like iyo comment iga tagaya si aan u sii wadno barnaamijyada aan ku soo bandhigayno taariikhda iyo dhaqanka dalkeena Soomaaliya. Kismaayo waxay ku taallaa koonfurta Soomaaliya waxayna ku fadhidaa xeebta badweynta Indiya. Magaalada waxaa ku qulqula webiga Jubba, taasoo ka dhigta mid ka mid ah magaalooyinka ugu hodansan kuna habboon beeraha lehna biyo macaan. Juqraafi ahaan waxay ka dhigaysaa xarun istiraatiiji ah oo ganacsi iyo ciidanba muhiim u ah. Qarniyo badan ka hor, Kismaayo waxay ahayd deked ay ganacsatada Carabta, Indiya iyo Bariga Afrika ku soo xiran jireen. Waxay ahayd meel lagu kala iibsan jiray xoolaha, dhuxusha, dharka iyo qalabka dahabka. Taariikhyahanadu waxay sheegaan in magaalada Kismaayo ay door weyn ka qaadatay faafinta Islaamka. Intii lagu jiray xilligii gumaystaha Talyaaniga iyo Ingiriiska, Kismaayo waxay ahayd xarun muhiim ah oo ganacsi iyo maamul. Dekedda Kismaayo waxaa loo adeegsan jiray in laga dhoofiyo xoolaha, sisinta iyo dhuxusha. Waxaa sidoo kale la dhisay dhismayaal iyo suuqyo. Qaar ka mid ah weli maanta way muuqdaan. Kismaayo waa caasimadda maamulka Jubbaland. Waxaa ku nool bulsho kala duwan oo leh dhaqan iyo hiddo taariikhi ah. Magaalada waxay caan ku tahay kalluumaysiga, beeraha iyo ganacsiga dekedda. Waxaa kaloo ay leedahay xeeb aad u qurux badan oo soo jiidasho u leh dadka deegaanka iyo martidaba. Xeebaha Kismaayo waa kuwo aad u qurux badan waxaana caan ku ah ciid cad iyo biyo nadiif ah. Dadka Kismaayo waa kuwa martisoor leh oo leh dhaqan hodan ah, heeso, ciyaaro dhaqameed iyo cuntada kala duwan ee badda laga helo. Magaalada waxaa kaloo lagu yaqaanaa xoolaha iyo suuqyo waaweyn oo lagu kala iibsado badeecooyinka kala duwan. Ugu dambeyntii, magaalada Kismaayo waa mid leh taariikh qoto dheer, dhaqan hodan ah iyo qurux dabiici ah oo qof walba u qalmo inuu barto. Haddii aad rabto in aan sii wadno soo bandhigida magaalooyinka taariikhiga ah ee Soomaaliya, hal shay ayaan kaa codsanayaa: subscribe ku dhufo, like saar, kuna soo faafi asxaabtaada. Taas waa dhiirigelinta ugu weyn ee aad nagu taageeri karto.